بسم الله الرحمن الرحيم وبرنامج كان دينتا يا دونيدا الحلقة دي سيدات ما أنت هدو الله يدمو وحنكو افتهمين waxa loo yaqaano ahlul xalli wal aqdi ahlul xalli wal aqdigu waa mustalax islaami ah waxaana loo isticmaalaa siyaasa sharciya culamaa muslimiinka ka hadla ee u adeegsadaan dadka muslimiinta wakiilada ka ah ama matala ama waxa hadda casrigeena loo yaqaano xildhibaan ahlul xalli wal aqdigu waa wax shariico ah muhiimna ah dadka muslimiinta ahna arimahooda iyo go'aamada caamka markii la gaarayana ay u baahan yihiin dad booskooda matala ama wakiil ka noqda nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ka sugan xadiis saxiixa oo imaam abi daawud rahimahullah kitaabkiisi uu ku qoray ku soo saaray nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu yiri la yastaqimu amru an-nas illa bil urafa wal irafatu haqqun yani umuraha iyo shu'unta bil aadanka ma qumayso mana istaagi karto mana saxsanaan karto ilaa in la helo dad wakala ah maahane curafaagu ama cariifku waa qof wakiila ama ku matalaya nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri in dadka la matalaa waa wax xaq ah waana wax wanaagsan weyn ummadaha muslimiinta ah waxaa ku jira ummado 200 milyan oo qof dhaafay sida hadda wadankan islaamka oo Indonesia oo kale ilaa 250 milyan oo qof buu maraya wadamo waxaa jira boqolaal milyan dhaafay sida Pakistan iyo Bangladesh iyo Nigeria iyo Masar iyo Turkiga iyo wadamo muslimiina boqolaal milyan kuwa 50 milyan ku jira kuwa 40 milyan ku jira Soomaaliya kale lagu qiyaas ilaa 15 milyan ilaa 18 milyan oo muslimiina dadkaas oo kale markay ka arrinsanayaan umuurahooda iyo masaalixdooda iyo danahooda iyo maciishadooda markay ka tashanayaan waxay u baahan yihiin dad wakiil ka ah ama dad matala walidaalika nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu ka soo noqday ghazwadii uu kula galay reer bani hawazin ama ghazwat hunayn hadba sidii loo yaqaan nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ka daba yimid qabiilkii reer hawazin aha oo codsiyo iyo wax weydiisto yiri ya rasuulallah noo soo celi qanaa'imteena nabiga sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu yiri ii soo saara curafa iyo dad maaragtay idinkeeda matala haddii marka aan la helin dadka ummadaha muslimiinta dad matala wax lagu heshiin karo ba iska yaraanaysa walidaalika nabiga sallallahu alayhi wasallam markii uu u soo hijroonayay magaalada Madiina waa tuu la galay heshiis dadkii reer Madiina ahaa waxayna ahaayeen 73 saxaabi iyo 12 gabdhood nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri iska soo doorta dad nuqaba ah naqiib waa qof wakiila idinka qof wakiil idinka soo doorta markaas waxay doorteen 12 wakiil 12 kaas qof marka waxay ahaayeen an-nuqaba ama dad wakala ah ama dad naa'ibiina ama dad xildhibaan ah marka nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu u baahdo inuu go'aan gaaro inuu arin kala tashado ayuu kala tashadaa iyagu tala geliya halkaas marka amarku uu ka yimaadaa intii nabiga sallallahu alayhi wasallam dawladiisa ay taagneed waxa mustashaariin uu ahaa oo la talin jiray أما أهل الشورى وها صحابة ودن سيبا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عثمان يا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين مركي أبو بكر رضي الله عنه خلافة هاي صحابة ولا تشنجري عمر بن الخطاب مركي ومارت خلافة الإسلام وهاي مجلس وحو سمي استشارئة وإلى تضباطا يشنب على شيء ذاتكم مؤرخين إنه لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه marka dadka ahlul xall wal aqdiga ah waa dadka matala oo aqliga iyo xikmada iyo deganaanshaha u saaxiibka ah oo arimaha waaweynka ka taliya oo masiirka ummadda iyo mustaqbalkooda tala ka soo jeediya waxa loo isticmaali karaa ahlul shura sida xalaqada hore aan ka soo sheekeynay waxa la dhigi karaa ahlul xall wal aqdi mustalaxan dadkii ugu horeeyay isticmaalay al-imam ash-shahristani rahimahullah kala isticmaal imam ahmad ibn hanbal waxaa kaloo isticmaalay imaam ibnu taymiya rahimahullah kitaabkiisa as-siyaasa sharciya waxaa aad u faahfaahiyey al-imaam al-juwayni rahimahullah kitaabkiisa al-ghiyath oo ka hadlay ahlul xall wal aqdiga sifaadkooda iyo tilmaamaha lagu garto shuruudaha ay leeyihiin iyo waxyaabaha ay qabtaan markii aad fiirisid siyaasa sharciya iyo culimadeena hore sida ay uga sheekeeyeen ahlul xall wal aqdiga tilmaamooyin
ka ay u dajiyeen way ku kala duwanaayeen kuwa 10 tilmaan bay u sameeyeen kuwa ilaa 5 maaragtay muwaasafaad bay u sameeyeen waana waxda ijtihaadi ah waana u banaan tahay inay ku kala aragti duwanaadaan tilmaamaha ama muwaasafaadka loo sameeyay ama shuruudaha loo dajiyay waxa kamid ah inuu qofka ahlul cilmi yahay inuu qof cadaalad leh inuu yahay inuu amaano leeyahay shuruuda noocaas oo kala taaba loo sameeyay marka hadda aad timaadid waaqicna hadda aan ku nool lahay oo muslimiinta ah ama waaqicna Soomaaliya oo kale hadii la yiraahdo qofka ahlul xal wal aqdiga hal soo saaro qaabkee loo soo saaraya waa su'aal weyn oo taala hadii la soo saaro shaqo noocay ah bay qabanayaan waa su'aal kale weyn oo taala culimadii hore ibn Taymiyyah rahimahullah oo kaleeto qofkii fiiriya siyaasad sharciya iyo qaabka uu u arkay ahlul xal wal aqdiga waxa moodaa inuu ku tilmaamay dadka xilalka haya oo ciidanka ku jira ama korneelada ah ama dadka jarnaalada ah iyo dadka gobornarada ah dadka gobolada kala haysta iyo dadka ahlu diinta oo ama culimada ah dadka marka gobornarada ah ama dadka korneelada oo ciidanka xubnaha waaweyn ka haya kuwa waa golo fulin oo wax shaqeynaya oo wax qabanaya way qofkii marka talinayay ama miisaaniyada dajinayay ama ruleska iyo qawaaniinta dajinayay iyo policy-ga iyo steps-ka iyo keenayay asaga laftiisa haduu yiraahdo wuu shaqeynaya oo wuxuu noqonayaa cornel ama wuxuu noqonayaa general ama wuxuu noqonayaa governor hadda waxa imaanaya in masaalixdu madaxa isla gasho si loo controlana aysan jireenin waa meelaha marka ummadda islaamka ah ay uga timid gaabiska mafhuumka marka ahlul xal wal aqdi ah institution looma bedelin lama institution gareynin lama ta'siisin ama muassasa lagama dhigin shuruudaheeda leh oo muwaasafaadkeeda caddahay oo qof kasta uu fulin karo aad u adag hadii hadda waaqicana la joogo la yiraahdo hal keen ahlul xal wal aqdi qof meel buu ku dhufanaya aragtida hadda caalamka ay dadkan hadda reer galbeedka nooga hormareen oo runtii ay mudan tahay in loo qiro waxa kamid ah dadkan hadda baarlamaanaadka oo kale uga shaqeeya magaalo kasta dad matalaya soo dirsanaysa ama gobol kasta dad matalu soo dirsanaya golaha baarlamaanka iskugu imaanayaan halkaas waxay kaga arinsanayaan masaalixda dawladda waxay kaga arinsanayaan heshiisyada waxay kaga arinsanayaan arrimaha ganacsiga waxay kaga hadlayaan masaarifta la siinayo dadka shaqaalaha ah inta ugu yar oo la siin karo inta ugu badan oo dadka la siin karo waxay dajinayaan qawaaniinta ama shuruucda wadooyinka lagu maro waxay dajinayaan qawaaniinta iyo shuruucda caafimaadka waxay dajinayaan qawaaniinta iyo shuruucda oo waxbarashada iskuulaadka iyo jaamacaadka waxa lagala tashanaya arrimaha waaweynka oo masiiriga ah oo ummadda oo dhan wada qusaya مثلا hadii la damco in luqada hadda Soomaaliya oo kaleeto wadanka luqadiis in la bedelo waxa go'aan ka gaaraya madaxweynaha kaligiis maya waa in la keenaa golaha oo luqada iyo arrimaha noocaas kolta masiiriga ay go'aan ka wada gaaraan hadii مثلا budgetka iyo miisaaniyada dawladda oo sanadka soo socdo kala dajinayo ma madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dajinayo maya waa in la helo golo waxaas mutakhassis ku ah oo go'aamiya bulshadana wakiil ka ah hadii marka lagu salayo gobol ama lagu salayo qabiil ama lagu salayo aragti la keeno waa aragtida hadeertan caalamka ay isticmaalaan hore wax dadka muslimiinta u soo maray ma ahan markii hadda laga yimaado casrigii saxaabada u timaado casrigii amawiyiinta casrigii ka dambeeyay oo cabaasiyiinta ilaa iyo hadda caalamka islaamka heerarka ay soo mareen ma jirin dad ahlul xal wal aqdi ah oo la yaqaan waxa ka soo bilowda xilligii مثلا Muawiya radiyallahu anhu dad ahlu xal wal aqd la yaqaan oo la tashado ma jirin khilaafadii cabaasiyiinta oo 500 sano jirtay khilaafadii Uthmaniyiinta oo 600 sano jirtay dad la yaqaan oo dad ahlu shura ah ma jirin dad lala tashado ma jirin arrimaha marka go'aanka ah oo dawladda islaamka ay gaareysay waa wax marka madaxweynaha iyo dadka ka agdhow ay isla gaarayeen way shacabku marka kulligiisu u dhan yahay waa ghaib ama uu ka maqan yahay saaxada in marka la helaa dad ahlu xal wal aqdi ah waa mafhuum islaami ah oo mabda cariiq ah laakiin wuxuu u baahan yahay sidii shuurada oo kaleeto in la ta'siisiyo in la muassasas gareeyo ama la ta'siisiyo ama loo sameeyo institution waxa loo yaqaano loo sameeyo tooliskiisa habdhaqankiisa ma aragtay ijraa'aadkiisa asaaliibti طرقدي ما أردت إذا كان قف وكيلها لو سمع لها
haddii marka dadkan hadda walaalaha oo dhahaya masalan baarlamaanaadka oo kaleeto waa wax xun ama waa wax gaalnimo ama waa kufrinimo ku tuurayo kaleeto oo dadkan hadda islaamiyiinta ah ama dadkan hadda xarakaadka hadda Soomaaliya ku nool kale waxaa looga baahan yahay qofkii inuu aragti kala keeno maxaa badiil u ah baarlamaanka oo aad heesaa ma heesaa barnaamij dadkan mujtamaca ah oo muslimiinta ah lagu ilaalin karo masaalixdooda iyo danahooda ay kuna muraaqabeyn karaan dawladda qofkii haya wax aragti ah oo ka bedelan baarlamaanka oo kaleeto asagoo aanan qofna laynin cidna aanan dilin cidna aanan gaalaysiinin cidna aanan murtad dhihin oo dadka muslimiinta ah maaragtay aanan shaki ka gelin noloshoodii iyo diintoodiiba ha keeno aragti munaasiba oo baarlamaanka bedeli kara ha soo fadhiisto maaragtay idaacadda muxaadara ha qabto ama qoraalaha ka sameeyo maqaal ha ka sameeyo ama kutub ha ka qoro maxaa badiil ah oo loo isticmaali karaa baarlamaanka hadda waxaa laha caalamku isticmaalaa wuxuu yahay baarlamaan Soomaaliya kale hadda baarlamaan buu leeyahay oo gobolada matala wax ma ka khaldan yihiin ha wax ma ka dhiman yihiin ha wax wanaagsan oo bedeli kara ma lahaya ilaa hadirtaan anigu ma arag qofkii haya wax ka bedelan oo fiican oo qurux badan inuu dadka la wadaagaa fiican inuu cajalada ka soo duubaa qurux badan inuu kutubo ka qoraa qurux badan laakiin ilaa hadirtaan waqtiga aan joogno wax baarlamaan dhaama ma leh baarlamaanka muxuu ka shaqeynayaa wuxuu ka shaqeynayaa ilaalinta madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ilaalinta xoolaha guud oo muslimiinta ah power sharing wuxuu qaybinayaa heshiisyada dawladda ay galayso ka warqabayaa wax walba oo masiirka ummadan ah buu tala ka geynayaa waa la yaqaana waxa baarlamaanka uu qabanayo baarlamaanka ma xalaaleynayo wax Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu xaraan ka dhigay mana xaraamtiyeelayo wax Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu xalaal ka dhigay xaq uma leh maaragtay qof muslim ha ahaado madaxweyne ha ahaado qof baarlamaana inuu zinada yiraahdo waa xalaal xaq uma lahan inuu khamrada yiraahdo waa xalaal xaq uma lahan inuu maaragtay wax kasta oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sharciisa ka soo horjeeda inuu xalaaleeyo xaq uma lahan dad waxaan nahay muslimiina waxaan leenahay dawaabid waxaan leenahay sharciyad waxaan leenahay marjiciyad oo shariica islaamiga ah arimaha kale oo dunyawiga ah arimaha masaalixda caamka ah arimaha ijtihaadaadka ah dadka muslimiinta ah way u baahan yihiin dad kala ah dad ayaga matala dad maaragtay xildhibaano u noqda u bixi baarlamaan u bixi majlis shura u bixi majliska ahlul hal wal aqd laakiin waxa laga maarmaana in la helo dadka muslimiinta dad matala nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiska saxiix wuxuu ku yiri wal irafatu haqqun wa haqq way dadka in la matala 20 milyan say uga wada munaaqashoon karaan hal mas'alo marka walaalahan marka runtii dadka gaalaysiiyay oo ku gaalaysiiyay maaragtay dastuur ama ku gaalaysiiyay baarlamaan ama ku gaalaysiiyay arimahan hadartan dawladaha oo kale ah waxa loo baahan yahay inay la yimaadaan barnaamij inay la yimaadaan aragti ka duwan midaan ama ka qurux badan ama booskeeda gali karta runtii wax sahlan ma ahan in dadka muslimiinta ah dawlad loo sameeyo in dadka muslimiinta noloshooda laga fakaro in masaalixdooda laga maaragtay tashado in horumarkooda laga fakaro wax sahlan runtii ma ahan waxa u baahan tahay barnaamij waxa u baahan tahay mashaariic waxa u baahan tahay aragtiyo waxa u baahan tahay dad maaragtay kawaadir ah waxa ka soo bixi kara dad culimo ah dad aqoon leh dad siyaasiyiin ah dad maaragtay mufakkiriin ah dumar iyo rag iyo haween iyo kulliba u baahan tahay halka muslimiinta ah oo Soomaalida ah runtii in hadda la gaalaysiiyo in la maaragtay dhiigooda la banaysto in maaragtay xaaladda ay ku nool yihiin lagu fiirsado wax naga qabta ma ahan dadka muslimiinta ah waxaan u baahannahay dawladaheena inaan taageerno waxaa yararka oo khalkhaldan oo naga dhimanna inaan kabanaan u baahannahay waxaan u baahannahay inaan isqancino waxaan u baahannahay inaan maaragtay horumarino ummadeena inta kulan kale aan ka gaarayna waxaan idin leeyahay waa ilaa liqaa'in aakhir والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.